waxaan u mahadcelinayaa dadkii halkaa ka qayb qaatay oo hubka sharci darrada gacanta ku dhigay oo ka badbaadiyay ummadda Soomaaliyeed maanta in maxaa la yiraahdaa hubkii lagu gumaadi lahaa ama sida sharci darrada loo gelin lahaa inay ayagu sifa sharci gacantooda ugu dhigeen maxaa la yiraahdaa waad cibaadaysateen oo maxaa la yiraahdaa sharciga hubka sharci darrada ahaa inuuna inku dhex fasaxmin ee aad qabateen baad ku cibaadaysateen hadalkaygu daaran yahay maanta arrintii ka dhacday eeriyada Cabudwaaq oo ahayd arrin maxaa la yiraahdaa argagax iyo la yaab dadka Soomaaliyeed oo dhan ku noqotay oo ahayd hub sharci darro ah oo sida loo soo raray iyo macnaha uu ku socday qaabkeeda la garan waayay oo loo waday in maaragtay ummadda Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo waxaan u mahadcelinayaa dadkii halkaa ka qayb qaatay oo hubka sharci darrada gacanta ku dhigay oo ka badbaadiyay ummadda Soomaaliyeed maanta in maxaa la yiraahdaa hubkii lagu gumaadi lahaa ama sida sharci darrada loo gelin lahaa inay ayagu sifa sharci gacantooda ugu dhigeen haday deegaanka oo sharci darrada soo galay ay yihiin waxaan kaloon u baaqayaa dadka halkaa joogo hubka ay gacanta ku dhigeen oo ay ka badbaadiyeen in qawaariijta iyo dad cadow ay gacanta u gasho inay ayagu ummadda Soomaaliyeed ku badbaadiyaan ku ilaaliyaan cadowga Soomaaliyeedna ku difaacaan waxaan kaloo halkaan maaragtay aanu ka soo joodinayaa dawladda federaalka hubka sharci darrada oo ay tilmaantay inuu sharci darro yahay iyo maamul goboleedka Galmudug labadaba ay sifa sharci inuusan hubka ku fadhiin cadeynayaan inaysan haddana ummadda gacantooda ay ku jirto ayna ku dhibaataynin sida la sheegayo ama wararka soo baxayo in la leeyahay hubkaas gacanta lagu soo celinayaa iyo dawladda dib u soo qabanayso hubkaas dhibaatadii ku gaartay shacabkii la soo dhaxmarinayay oo gacantooda ku qabtay dhibaatadii ku soo gaartay iyo dadkii ka dhintay waa ka tacsiyeynaya dawladda Soomaaliyeedna oo federaalka ana waxaan leeyahay hubkaas inay nasifa sharci darro ah ku soo galay adinkuna aad nasifa sharci darro ah dib dambe dad aan loogu waxyeelin beesha halka degan ama maxaa la yiraahdaa maamul goboleedkana si taxadar leh qof waliba wixii uu gacantiisa ku hayo inuu ummadda Soomaaliyeed ugu adeego ku badbaadiyo cadowga dalka soo galaya ku difaaco ayna noqon inuuna maaragtay mid Soomaaliyeed dib wax loogu yeelo uusan noqon waanan uga mahadcelinayaa maxaa la yiraahdaa waad cibaadaysateen oo maxaa la yiraahdaa sharciga hubka sharci darrada ahaa inuuna inku dhex fasaxmin ee aad qabateen baad ku cibaadaysateen waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba intii wax ku noqotay oo dhimatayna Allah u naxariisto waa intii maaragtay ku dhaawacantayna Allah u boogadayaan leeyahay wada shaqayn wanaagsan dawladda federaalka waxaan rabnaa hubka sharci darrada cidii soo gelisay iyo sifahay u soo galiyeen intaba in la hor keeno sharciga wax ka weyn ma lahan in sharciga la waafajiyo dawladnimadu waxa weeye in lagu kala dambeeyo sharcigana uu hogaamiyo haday sharci darro imaado fawda imaanayso waa fawdaduna waa waxa hadda hubka sharci darrada in uu nooga soo galo maxaa la yiraahdaa wadooyinka dalka cadowga noo ahaa oo Itoobiya hub ka soo galay in maxaa la yiraahdaa maanta uu anaga dhexdayada joogo weeye sharci darrada sharcigana in dib loogu soo noqdo dawladnimaduna ay noqoto mid si sax ah u shaqeyso haday noqon weydo hadee maxaa la yiraahdaa baarlamaanna ma jirayo xukuumadna ma jirayso kala dambeynna ma jirayso marka ha lagu soo celiyo kala dambeyn iyo dawladnimadu ha lagu soo celiyo dadka maxaa la yiraahdaa aan sharciga hubka waafaqsanayn keenay in la soo qabto sharciga la hor keeno la waafajiyo wixii maxaa la yiraahdaa uu xaq u leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.